shirka golaha wasiirada Jubbaland oo lagu qabtay meel ka baxsan magaalada Kismaayo iyo arrin lagu ansixiyay kulankaasi ciidamo gadoosan oo la wareegay kastamka canshuuraha magaalada Guriceel madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo heshiis qarsoodi ah la galay Imaaraadka Carabta waa maxay shanta qodob ee Imaaraadku u ballan qaadeen Soomaaliya fadlan sii share garee muuqaalkan sidoo kalena qaybta falowga ama subscribe-ka noo saar waa bilaash waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dunida shirka golaha wasiirada Jubbaland ayaa maanta markii ugu horeysay lagu qabtay meel ka baxsan Kismaayo gaar ahaan magaalada Doble ee gobolka Jubbada Hoose shirka golaha ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyadoo goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere kulanka shirka waxaa lagu ansixiyay in magaalooyinka Doble iyo Buurdhuuba ay noqdaan degmooyin waxayna noqonayaan degmooyin ka tirsan maamulka Jubbaland arrintan ayaa waxay tahay mid saameyn ballaaran ku leh maadaama degmooyinka Doble iyo Buurdhuuba loo aqoonsaday inay noqdaan degmooyin ka tirsan maamulka Jubbaland dadka ka faalooday siyaasadda Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in aqoonsiga labadan magaalo ee Doble iyo Buurdhuuba inay degmooyin noqdaan inay qayb ka tahay isballaarinta madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland Axmed Madow oo ka wado deegaanada Jubbaland dhanka kale waxaa kulankii maanta warbixin looga dhageystay dhammaan xubnaha golaha wasiirada ee shirka ku sugan isagoo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland uu faray in si degdeg ah ay shaqooyinka waxyaan bulshada ee laban arrimahan ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli maamulka Jubbaland ka arrimiyo kaliya magaalada Kismaayo tan ayaa la leeyahay waxay qayb ka qaadan doontaa maadaama labadani magaalo loo aqoonsaday degmooyin hoos yimaada Jubbaland in ay tahay arrin lagu ballaarinayo maamulka Jubbaland si markii doorasho la gaaro oo cod uga helo magaalooyinka Doble iyo waliba Buurdhuuba madaxweynaha dalka Imaaraadka Carabta Sheekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayaa la xaqiijiyay in taageero joogto ah aan waxba laga reebi doonin uu dalka Soomaaliya la garab tagnaan doono maadaama meesha ay ka baxday dowladii Qatar oo dowladii ka horeysay Xasan Sheekh Maxamuud xiriir dhow ila lahaayeen Imaaraadka Carabta ayaa la tilmaamaa in shantiisa la soo dhaafay dalka Soomaaliya inaysan caga soo dhigin isla markaana dharaar cad laga ceeriyay madaxweynaha dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu soo dhaweynta booqashada hogaamiyaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka dhigay mid lama taabtaan ah walow socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayay lagu soo gabagabeeyo 2 maalin ay qaadatay in ka badan 4 maalin Xasan Sheekh Maxamuud ayaa aslankiisa waxa uu muujiyay sida ugu faraxsan yahay mowqifka taariikhiga Imaaraadka Carabtu ay ku garab taagan yihiin dowladdiisa iyo shacabka Soomaaliyeed isagoo uga mahadceliyay dareenka diiran ee Sheekh Zayed inuu muujiyo shacabka Soomaaliyeed arrintan ayaa waxay u muuqanaysaa xiriir laba geesood ah oo hadda u bilowday dowladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta Imaaraadka Carabta ayaa waxa ay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud u soo ballan qaaday inay ka taageeri doonto dhanka amniga oo ciidamo u tababari doonto sidoo kalena dhanka caafimaadka ay qayb ka qaadan doonto heshiiska labada dowladood ayaa waxa u muuqda mid meesha ka saarayo awoodii Qatar ay ku leedahay Soomaaliya shantiisa la soo dhaafay dhinaca kale waxaa laga baqdin qabaa in xiriirkani uu dhaawaco xiriirkii hore kala dhexeeyay Soomaaliya dalka Turkiga maadaama dalka Turkiga uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn ee Soomaaliya ugu dambeyntii hadiyaan eegno xaaladda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa maanta waxay ahayd mid aad u kacsan waxaan lagu arkay ciidamo ka tirsan kuwa daraawiisha Galmudug gadood ay sameynayaan sida ila wareejo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen bandhiga duleedka Guriceel waxaa lagu soo waramayaa inay isku hor fadhiyeen qayb badan ka mid ah magaaladana laga cabsi qabo in weerar uu ka dhaco maadaama ciidamo gadoosan ay la wareegeen kastamka canshuuraha dowlad goboleedka Galmudug ee ku yaala halkaas dhanka kale waxaa hakad la geliyay in ciidamada dhaqdhaqaaq wadadaasi gaar ahaan qaybta xigta dhinaca degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan wararka waxay intaasi ku darayaan in ciidamadu ay ka cabanayaan mushaar la'aan muddooyinkii ugu dambeeyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor uu dhammaan mushaaraadkii loogu talagalay in ciidamada maamulkaasi la siiyo u wareejiyay muddadii ololaha doorashada ay ka soconayeen Muqdisho arrintan ayaa saameyn waxa ay ku yeelatay dhaqaaqa gaadiidka isaga kala goosh dadaasi ah wada halbowlow ah socodka dadka iyo gaadiidka gobolada dhexe xaaladda ayaa haatan aad u kacsan mana jiraan
wax wada hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada Galmudug iyo madaxda ugu sarreeya maamulkaas. Inta badan ciidamada Galmudug ayaa waxa ay ka cawdaan mushaar la'aan, waxayna taasi keentay in marar badan gadood ay sameeyaan, markaana ay ciidamadu maamulka Galmudug ay la yimaadaan inay qabsadaan meelaha dakhliga ka soo galo maamulka Galmudug. Arrintan ayaa waxay saameyn ballaaran ku yeelan kartaa xuduudda military ee maamulka Galmudug, maadaama ciidamadan ay qayb ka yihiin kuwa maamulka Galmudug ee la dagaalamay Ahlu Sunna wal Jameeca. Dhanka kale, warar soo baxaya tilmaamayo in ciidamadan haddii ay gadoodkan sii wadaan in taasi fursad siin doonto hoggaanka Ahlu Sunna wal Jameeca oo deegaanadaasi aad ugu xooggan.